السلام عليكم soo dhawaada dhammaan asxaabta qaaliga ah ku xidhan Hani Lucky Channel inanka yar halka ku arkaysaan magaciisa waxaa la yiraahdaa Thomas wuxuu jiraa 7 sanadood inanka yar markuu iskuulka tago wuxuu ku yiraahdaa adeerkay waa Superman ciyaalkii wax isla dhiganayaan macallimiintii adeerkay waa Superman caruurtii oo dhan way ku qoslaan waxay dhahaan Supermana way ku qoslaan xaraabay ka dhigtaan macallimiintii waxay u sheegaan inankii yaraa Superman maaha wax jira maaha shakhsiyad xaqiiqi ah ma jiro wax la yiraahdo Superman inankii yaraana wuu u dhaaranaya wuxuu leeyahay adeerkay waa Superman maalin walba iskuulkii oo dhan ayaa inankii yaraa laga dhigtay xaraabo oo laga xaraabaysanaya oo lagu qosqoslaya marka ilmihii yaraa iskuulkii oo dhan caan buu ka noqdo waa laga xaraabaysanaya oo lagu qosqoslaya isna wuu ku adkaysanaya wuxuu leeyahay adeerkay waa Superman oo wuu ku dhaaranaya waalidiintii bay waceen macallimiintii si ay ugala hadlaan dhibaatada jirta inanka yar hooyadii marka waxay la hadashay ninkeeda walaalkii oo ah Henry Cavill waa actorka weyn ee metelay musalsalka ama filimaanta Superman waxay ku tiri iskuulka ma tagi kartaayo Thomas ma raaci kartaa iyadoon u sheegin sababta waayahay buu yiri soo kaxeeyay inankii Thomas iskuulkii markay yimaadeen waa la wada yaabay iskuulkii oo dhan waxa la ogaaday inaanu inanka yarbeenu sheegi jirin adeerkiisii uu sheegi jiray oo dhan jiray waa Superman inuu yahay Henry Cavill ka hor ma asxaabi qisada inanka yar sideed la tahay ilmaha yar ee la beeniyay iskuulkii oo dhan iyo macallimiintiiba ay rumaysan waayeen ilmaha yar horta been ma sheegaan haddana waxa dhacday in ilmaha yar la rumaysan waayay ilaa laga arkay adeerkiisii uu sheegayay وعناية قصة كلا عصب حمد الله في أمان الله والسلام عليكم.